عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Garaa TV kuna soo dhawaada warwix naga soo gaaray dalka iyo daafaha caalamka qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa kamida Somaliland iyo beelaha Gadabuursi iyo Harti oo uu shir uga furmayo Hargeysa iyadoo Cabdiraxmaan Ciro uu qorshe cusub diyaariyay dawladda federaalka oo ciidamadii ugu badnaa ku daabushay Puntland iyo Siciid Dani oo wadnaha farta ku haya madaxweyne ku xigeenkii Jubbaland oo Jaaniya cidhib meel uu dhigay la waayay iyadoo xogo ay sheegayaan inuu Muqdisho ka degay Axmed Qorqor oo ka inuu ka laabto go'aankii uu kaga hadhay tartanka doorashada Galmudug qodobadaas iyo kuwa kale oo caalamka iyo Soomaaliya la xidhiidha ayaa idinku soo maqan haddii ay ku tahay xilliga salaada fadlan soo guda waajibka ee ku saaran kuna soo noqo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay tan iyo markii uu talada Somaliland la wareegay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxa soo tarayay hadallada la xidhiidha dib u heshiisiin wada tashi siyaasadeed iyo qorshayaal lagu xoojinayo midnimada bulshada haddaba xogaha hadda soo baxaya ayaa sheegaya in magaalada Hargeysa dhawaan lagu qaban doono shir ballaaran oo lagu tilmaamayo midkii ugu horeeyay ee noociisa muddo ku dhow 35 sano kaas oo ay isugu iman doonaan xukuumadda Somaliland iyo madax dhaqameedka beelaha dega gobolada darafyada gaar ahaan beelaha Gadabuursi Harti iyo dhammaan beelaha kale ee Somaliland shirkan oo qabanqaabadiisu si xawli ah uga socota magaalada Hargeysa ayaa la sheegay in loogu magac daray Somaliland mid ah iyo shacab wada jira magacaas oo xambaarsan fariin muujinaysa in la doonayo in la adkeeyo wadajirka bulshada isla markaana la abuuro jawi cusub oo lagu dhageysanayo cabashooyinka iyo tabashooyinka muddo dheer soo jiitamayay sida ay tilmaamayaan ila xogogaala shirkan waxa uu noqon doonaa madal ay isugu yimaadaan madax dhaqameedka dhammaan gobolada Somaliland culimo waxgarad siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda waxaana la filayaa in doodaha ugu muhiimsan ay ku saabsan yihiin sidii loo heli lahaa nidaam ay beeruhu ku wada qanci karaan loona xallin lahaa tabashooyinka la xidhiidha saamiga siyaasadeed awood qaybsiga horumarinta gobolada iyo ka qaybgalka hay'adaha dawladda muddo dheer ayay beelaha dega gobolada darafyadu soo jeediyeen cabashooyin la xidhiidha sida ay u arkaan inaanay helin saamiga ay ku lahaayeen maamulka xilalka dawladda iyo adeegyada horumarineed inkastoo xukuumadihii kala dambeeyay ay qaadeen tallaabooyin kala duwan haddana cabashooyinkaasi wali si buuxda looma soo afjarin wararka la helayo ayaa sheegaya in madaxweyne Ciro uu qorshahan u arko mid muhiim u ah mustaqbalka Somaliland isaga oo doonaya in la abuuro heshiis siyaasadeed oo cusub oo ku saabsan wada tashi iyo isafgarad sida ila ku dhow madaxtooyadu ay sheegayaan madaxweynaha ayaa aaminsan in xasiloonida iyo midnimada Somaliland lagu sii adkeyn karo kaliya marka la helo hanaan ay dhammaan beeluhu dareemaan inay si siman uga dhax muuqdaan maamulka mid kamida qodobada ugu waaweyn ee shirkan laga filayo ayaa ah dib u eegista dastuurka Somaliland ila xogogaala ayaana sheegaya in la qorsheynayo in dib loo furo qodobo kamid ah dastuurka oo ay muddo dheer saluugsanayeen beelaha qaarkood arrimaha la falanqeynayana waxa kamid noqon kara nidaamka awood qaybsiga qaab dhismeedka hay'adaha dawladda habka matalaadda siyaasadeed iyo qodobo kale oo la rumaysan yahay inay abuureen tabashooyin sidoo kale waxa la filayaa in shirkan lagu gorfeeyo sidii loo sixi lahaa khaladaad siyaasadeed oo dhacay sanadihii la soo dhaafay laguna dhisi lahaa hanaan cusub oo horseedi kara ama horseeda kalsooni dheeraada taasna macnaheedu ma aha oo kaliya in wax laga bedelo sharciyada balse sidoo kale waa in la dhiso ama la helo heshiis bulsho oo ay dhammaan dhinacyadu ku wada qanacsan yihiin waxa jira rajo badan oo laga qabo in shirkan uu noqdo mid lagu xalliyo arrimo muddo dheer taagnaa Somaliland badan ayaa qaba in si daacada loo maareeyo uu noqon karo fursad taariikhi ah oo Somaliland ay uga gudubto caqabadaha gudaha isla markaana la abuuro jawi siyaasadeed oo degan dhinaca kale waxa jira dad muujinaya taxaddar waxaanay sheegayaan in shirar badan oo noocan oo kale ah ay hore u dhaceen balse aanay dhammaantood dhalin natiijooyin laga filayay sidaa darteed waxay ku baaqayaan in go'aanada ka soo baxa shirkan aan lagu ekaan warqado iyo ballanqaadyo balse loo bedelo qorshayaal wax ku ool ah oo si dhaba loo fuliyo shirkan ayaa sidoo kale noqon kara fursad ay madax dhaqameedku si toos ah ugu gudbiyaan aragtidooda madaxweynaha iyo xukuumadda iyagoo soo bandhigi doona baahiyaha iyo cabashooyinka bulshadu ay matalaan waxaana la filayaa in doodahaasi ay noqdaan kuwa furan oo lagu dhageysto dhammaan dhinacyada waxa kale oo la rumaysan yahay in qodob muhiim ah uu noqon doono horumarinta gobolada darafyada
dadka deegaanadaasi ayaa muddo dheer ku doodaya in adeegyada dowladda, kaabayaasha dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo mashaariicda horumarineed aanay si siman u gaadhin. sidaa darteed waxaa la filayaa in shirku uu soo saaro talooyin ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa horumarka goboladaasi. arrinta saamiga xilalka dowladda ayaa iyaduna ka mid ah mowduucyada ugu culus. beelo badan ayaa qaba in qaabka hadda jira uusan si buuxda uga turjumin isku dheelitirnaanta bulshada. sidaa darteed waxaa la filayaa in shirku uu soo jeediyo hanaan cusub oo lagu xaqiijin karo matalaad ay dhinacyadu ku wada qanacsan yihiin. muddada la qorsheeyay inuu shirku socdo oo ah 14 maalmood ayaa muujinaysa in la doonayo dood qoto dheer oo aan lagu degdegin go'aanada. inta lagu guda jiro labada toddobaad waxaa la filayaa in guddiyo kala duwan ay falanqeeyaan qodob kasta kadibna ay soo gudbiyaan talooyin lagu midaysan yahay. goobjoogayaal siyaasadeed ayaana sheegaya in haddii shirkani uu dhammaado heshiis la isla ogol yahay uu noqon karo mid ka mid a shirarka ugu muhiimsan ee Somaliland soo mara tan iyo dib u dhiskeedii, waxaana ay tilmaamayaan in heshiis noocaasi uu xoojin karo kalsoonida shacabka iyo wadajirka bulshada. dhanka kale waxaa jira caqabada aan la iska indhatiri karin kala arkiduwanaanshaha siyaasadeed ee beelaha iyo danaha beelaha. muranada ku saabsan awood qaybsiga iyo sida loo fulinayo go'aanada ayaa dhammaantood noqon kara arrimo saameeya guusha shirka. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay dulqaad, wada hadal iyo tanaasul ay sameeyaan dhammaan dhinacyadu. madaxweyne Ciro ayaa la sheegay inuu si gaar ah u danaynayo in shirkani uu noqdo mid ka duwan kuwii hore, isagoo doonaya in laga saaro qorshe cad oo leh jadwal fulineed, guddiyo la socda iyo hanaan lagu cabirayo sida go'aanada loo hirgelinayo. dad badan oo reer Somaliland ayaa hadda indhaha ku haya Hargeysa iyagoo sugaya waxa ka soo bixi doona shirkan. rajada ugu weyn ayaa ah inuu noqdo madal lagu xalliyo tabashooyinka jira, lagu xoojiyo wadajirka bulshada, laguna dhisa kalsooni cusub oo dhexmarta dowladda iyo shacabka. Garaa TV ayaad la socotaan. sida ay sheegayaan ilo xog ogaal oo la hadlay warbaahinta, dowladda federaalka ayaa qaaday tallaabooyin cusub oo la xiriira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaas oo la sheegay inay ku wajahnaayeen gobolka Mudug. xogaha la helayo ayaa tilmaamaya in aroornimadii saacadii 8 subaxnimo iyo 30 daqiiqo laga duuliyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho diyaarad ka baxday qaybta gaarka ah ee adeegsadaan ciidamada dawladdu, taas oo sida la sheegay siday hub iyo ciidamo loo qorsheeyay in loo qaado magaalada Gaalkacyo. wararka ayaa sheegaya in diyaaradaasi ay ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo ee dhanka Galmudug, kaas oo maamul goboleedka Galmudug, halkaas oo sida xogtu ay sheegayso lagu dejiyay hub iyo ciidamo ka hor inta aan loo sii gudbin xorooyin ay degan yihiin ciidamada daacadu ah dowladda federaalka oo ku sugan deegaano ka tirsan waqooyiga magaalada Gaalkacyo. ila wareedyadu waxay sheegeen in gaadiidkii lagu qaaday hubkaasi lagu soo geliyay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho galabnimadii ka horeysay shalay, iyadoo laba baabuur oo waaweyn la sheegay inay sideen saanad ciidan oo kala duwan. hubka la sheegay in la raray waxa ku jiray rasaas noocyo kala duwan leh, halka sidoo kale diyaaradaha lagu qaaday ciidamo la sheegay in dhawaan laga soo celiyay furimaha dagaalka ee Masjid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe. Masjid Cali Guduud ayaa muddooyinkii dambe ka mid ahaa goobaha ugu culus ee ay ka socdeen dagaalada dowladda federaalka iyo argagixisada, waxaana halkaasi ku dagaalamay cutubyo badan oo ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka. sida ay sheegayaan ilo xog ogaalana qaar ka mid ah askarta laga soo qaaday furimahaasi ayaa hadda dib loogu wareejiyay gobolka Mudug. arrintaasina waxay dhalisay hadalhayn siyaasadeed iyo mid amni. wararka ayaa intaa ku daraya in kulan muhiim ah oo shalay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya lagu falanqeeyay xaaladda amni ee gobolka Mudug iyo qorshayaal la xiriira dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dowladda. ila ku dhow kulanka ayaana sheegay in madaxda sare ee dowladdu ay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa qorshayaal amni oo cusub, inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin qodobadii ka soo baxay kulankaasi. xogaha ay helayaan ilo kala duwan ayaana sheegaya in kulankaasi diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed iyo tan amni ee ka jirta gobolka Mudug, gaar ahaan deegaanada ay isku horfadhiyaan ciidamada kala taageersan dowladda federaalka iyo maamulka Puntland. gobolka Mudug ayaa muddo dheer ahaa goob ay isku dhex jiraan maamullo kala duwan, waxaana marar badan ka dhacay xiisado ciidan iyo murano siyaasadeed. waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in dowladdu ay doonayso inay xoojiso joogitaanka ciidamadeeda ee deegaanada ay saameynta ku leedahay, iyadoo la sheegay in ciidamo dheeraad ah iyo saanad military oo loo dirayo halkaasi. si kastaba ha ahaatee,
ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda federaalka oo xaqiijinaya in howlgal noocaasi ah la fuliyay ama uu qorshaysan yahay. dhinaca kale dadka falanqeeya arrimaha amniga ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaq kasta oo ciidan oo ka dhaca gobolka Mudug uu si dhow la xiriiro xaaladda siyaasadeed ee u dhaxaysa dowladda federaalka iyo Puntland muddooyinkii u dambeeyayna waxaa jiray khilaafyo siyaasadeed oo u dhaxeeyay labada dhinac kuwaasi oo salka ku haya arrimo la xiriira awood qaybsiga doorashooyinka iyo maamulka ciidamada. gobolka Mudug wuxuu leeyahay muhiimad istaraatiiji ah maadaama uu yahay gobolka kaliya ay wadaagaan Puntland iyo Galmudug taasoo ka dhigaysa meel xasaasi ah oo saameyn weyn ku leh xaaladda guud ee amniga Soomaaliya. sidaa darteed dhaqdhaqaaq kasta oo ciidan oo halkaasi ka dhaca ayaa si degdeg ah u noqda arrin si weyn loo hadalhayo. wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada la geeyay Gaalkacyo laga yaabo in loo qorsheeyay howlgallo lagu xaqiijinayo saldhigyada dowladda federaalka ee Puntland, halka warar kalena ay tilmaamayaan in loo diyaarinayo howlgal amni oo ka dhana kooxaha hubaysan. dhanka Puntland weli wax war rasmi ah lagama soo saarin dhaqdhaqaaqyada la sheegay inay dowladda federaalku wado. maamulka Puntland ayaa hore dhowr jeer u sheegay in aanu aqbali doonin ciidamo cusub oo aan wada tashi lagu keenin deegaanada uu maamulo, iyadoo madaxda maamulkaasi marar badan ay ku celceliyeen in arrimaha amnigu ay yihiin kuwo u baahan iskaashi iyo wada xaajood. falanqeeyaasha siyaasadda ayaana aaminsan in haddii dhaqdhaqaaqyadan ciidan ay dhab noqdaan ay lagama maarmaan tahay in dhammaan dhinacyadu ay muujiyaan isxakamayn si looga fogaado iska hor imaad hubaysan oo cusub. waxaanay sidoo kale tilmaamayaan in gobolka Mudug uu hore lagu jiray marxalado adag oo colaadeed, islamarkaana shacabka gobolkaasi ay aad ugu baahan yihiin xasilooni iyo nabad waarta. waxaana sidoo kale la tilmaamayaa in dhaqdhaqaaqyada ciidan ee noocana ay ku soo beegmayaan xilli Soomaaliya ay wajahayso caqabado badan oo amni siyaasadeed iyo kuwa la xidhiidha dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. sidaa darteed khilaaf kasta oo dhex mara hay-adaha dowladda iyo maamulada dalka ayaa saameyn ku yeelan kara dadaalada guud ee lagu xoojinayo amniga. waxaa xusid mudan in deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Puntland ay isku farasaareen ciidamada dowladda federaalka taabacsan iyo kuwa daraawiishta Puntland. ilaa hadda ma jiraan cadeymo madax bannaan oo si buuxda u xaqiijinaya sheegashada ku saabsan hubka, tirada ciidamada ama ujeedada rasmiga ah ee loo geeyay Gaalkacyo. ciidamadan dowladda federaalkuna kama aysan soo saarin war saxaafadeed rasmi ah arrintan ku saabsan. sidoo kalena maamulka Puntland weli kama uusan jawaabin wararkaasi. wahagaag madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa si weyn hadalhayn uga dhex abuuray siyaasadda Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inaan la ogeyn halka uu ku sugan yahay, islamarkaana ay jiraan xogo xaqiijinaya oo tilmaamaya in maalin ka hor uu gaadhay magaalada Muqdisho. wararkan ayaa sii xoojiyay hadalhaynta ku saabsan isbedel siyaasadeed oo laga yaabo inuu ka socdo gudaha Jubbaland. Maxamuud Sayid Aadan ayaa sanadihii u dambeeyay inta badan ku sugnaa degmada Doolow ee gobolka Gada, halkaas oo uu saldhig siyaasadeed iyo mid ciidan ka dhigtay. gobolka Gada ayaa muddo dheer ahaa goobta ugu weyn ee loolanka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, iyadoo labada dhinac ay marar badan isku qabteen maamulka gobolka, ciidamada ku sugan iyo cidda maamul ahaan gacanta ku haysa. muddooyinkii u dambeeyay waxaa jira warar isa soo tirayay oo sheegayay in Maxamuud Sayid Aadan uu bilaabay wada xaajoodyo hoose oo uu la leeyahay madax ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. ila kala duwan ayaa sheegaya in wada hadalladaasi ay ahaayeen kuwo lagu doonayo in lagu soo afjaro khilaafkii muddada dheeraa ee u dhaxeeyay isaga iyo Villa Soomaaliya, islamarkaana la abuuro iskaashi siyaasadeed oo cusub. wararkaasi xilligaasi ma helin xaqiijin rasmi ah, waxaana dhinacyada ay khusayso ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan. hadda soo bixitaanka xogta cusub ee sheegaysa in dowladda federaalku ay u dirtay diyaarad Doolow, islamarkaana Maxamuud Sayid lagu geeyay magaalada Muqdisho ayaa sii kordhiyay tuhumka iyo saadaasha ku saabsan in heshiis siyaasadeed uu dhacay ama uu meel wanaagsan marayo. si kastaba ha ahaatee xogtan ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ay sii kala fogaanayaan. haddii ay dhacday in Maxamuud Sayid Aadan uu dhab ahaan gaadhay Muqdisho, islamarkaana uu la kulmay madaxda dowladda federaalka, arrintaasi ayaa noqon karta mid si weyn u bedesha xaaladda siyaasadeed ee Jubbaland. Maxamuud Sayid Aadan ma aha siyaasi caadi ah, waa mid ka mid ah shakhsiyaadka saameynta ku leh gobolka Gado, wuxuuna muddo dheer ahaa wejiga ugu muhiimsan ee maamulka Jubbaland uga arrimiyo gobolkaasi. gobolka Gado ayaa leh muhiimad siyaasadeed iyo mid amni oo aad u weyn. waa gobolka isku xidha Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia, waana meel ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka, kuwa Jubbaland iyo ciidamada Ethiopia ee ka howlgala xadka. sidaa darteed cid kasta oo saameyn ku leh Gado waxay leedahay miisaan siyaasadeed oo
oo ka baxsan heer gobol. khilaafka dowladda federaalka iyo Jubbaland ayaa soo jiitamaya muddo dhowr sano ah. dowladda federaalka ayaa marar badan ku eedeysay maamulku inuu ka madax adaygayo siyaasadaha dowladda dhexe, halka Jubbaland ay dowladda ku eedeysay faragelin joogto ah oo lagu hayo arrimaheeda gudaha. xiisadan ayaa sababtay in kalsoonidii labada dhinac ay hoos u dhacdo. Maxamuud Sayid Aadan wuxuu door muuqda ku lahaa marxaladihii kala duwanaa ee khilaafkaas. mararka qaar wuxuu si adag u difaaci jiray mowqifka Jubbaland gaar ahaan arrimaha gobolka Gado. haddii maanta uu doorto inuu la shaqeeyo dowladda federaalkana waxay noqon kartaa isbedel siyaasadeed oo saameyn ku yeeshay isku dheelitirka awoodda ee Jubbaland. waxaa sidoo kale la isweydiinayaa sababta uu uga aamusan yahay arrintan, mana jiro war ama muuqaal uu soo saaray oo ku beeninaya ama ku xaqiijinaya wararka socda. sidoo kale maamulka Jubbaland kama uusan soo saarin wax war oo rasmi ah oo lagu cadeynaya halka uu ku sugan yahay ama mowqifkiisa. aamusnaanta labada dhinac ayaa sii kordhinaysa mala awaalka marka xaaladaha noocan oo kale ah ay dhacaan. waxa inta badan bata wararka iyo falanqaynta siyaasadeed ee ku salaysan xogaha ay bixiyaan ila kala duwan. falanqeeyaasha siyaasadda Soomaaliya qaarkood ayaa aaminsan in dowladda federaalku ay muddooyinkii u dambeeyay xooga saartay sidii ay ula heshiin lahayd siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin saameyn ku leh dowlad goboleedyada si loo yareeyo khilaafaadka siyaasadeed ee dalka. haddii Sayid Aadan uu ka mid noqdo shakhsiyaadkaasi, waxay dowladda federaalka u noqon kartaa guul siyaasadeed. dhinaca kale, haddii uu ka baxo safka Jubbaland, maamulka Axmed Madoobe wuxuu waayi karaa mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu saameynta badnaa ee gobolka Gado. taasina waxay keeni kartaa isbedel ku yimaada qaabka maamulka Jubbaland u maareeyo gobolkaasi. waxaa kale oo suuragal ah in socdaalka Muqdisho haddii uu dhacay uusan ahayn mid siyaasadeed oo keliya, waxaana jiri kara sababo kale oo shakhsiyaad, caafimaad ama wada tashi oo aan weli la shaacin ayay leeyihiin falanqeeyaashu. dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa xilli siyaasadda Soomaaliya ay gashay marxalad xasaasi ah, iyadoo ay socdaan diyaar garow la xidhiidha doorashooyinka, wada hadallo siyaasadeed iyo khilaafaadyo u dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada. haddii wararkan sheegaya in dowladda federaalku ay diyaarad u dirtay Maxamuud Sayid Aadan ay sax noqdaan, waxay muujin kartaa in Villa Soomaaliya ay muhiimad gaar ah siinayso xidhiidhka ay la yeelanaysa siyaasiyiinta saameynta ku leh Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado. dowladda federaalku waxay muddo dheer isku dayeysay inay ballaadhiso saameynteeda gobolkaasi. dhinaca kale, Jubbaland ayaa u arki karta tallaabo kastoo noocaas ah isku day lagu wiiqayo midnimada maamulka iyo hoggaankiisa. taasi waxay sii kordhin kartaa xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa labada dhinac haddii aan xal wada hadal ku dhisan la gaadhin. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa la sheegay inuu dib uga fiirsanayo go'aankii uu hore ugu shaaciyay inuusan ka qaybgeli doonin doorashada madaxtinimada Galmudug ee la filaya inay qabsoonto marka la soo gabagabeeyo qabanqaabada hadda socota. inkastoo munaasabadii 26 Juun ee sanadkan ka dhacday magaalada Dhuusamareeb si cad uga sheegay inuusan doonaynin inuu mar kale isu sharaxo xilka, haddana warar siyaasadeed oo isa soo taraya ayaa tilmaamaya in xaaladdu isbedeshay, isla markaana cadaadis siyaasadeed iyo mid beeleed uu ku qasbayo inuu dib u eego mowqifkiisii hore. wararka laga helaya ila ku dhow Axmed Qoorqoor ayaa sheegaya in habeenkii xalay ay gurigiisa magaalada Muqdisho ku booqdeen xubno isugu jira odayaal dhaqameed, siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda beelo ka tirsan deegaanada Galmudug, kuwaas oo si cad uga codsaday inuusan ka hadhin tartanka balse uu mar kale isu soo sharaxo hoggaanka Galmudug. sida ay xoguhu tilmaamayaan, waftigaasi waxay ku doodeen in xaaladda siyaasadeed ee Galmudug ay u baahan tahay hoggaan khibrad leh oo yaqaana nidaamka maamulka, isla markaana ay jiraan duruufo amni iyo kuwa siyaasadeed oo aan weli deganayn. waxay xubnahaasi u sheegeen Axmed Qoorqoor in go'aankii uu kaga hadhay tartanku uu keenay jahawareer siyaasadeed iyo kala qaybsanaan ka dhex jirta beelihii taageersanaa, isla markaana ay rumaysan yihiin in haddii uu tartanku galo fursad wanaagsan uu leeyahay inuu mar kale helo kalsoonida baarlamaanka Galmudug. waxaanay sidoo kale ku booriyeen inuusan go'aan kama dambaysa qaadan isaga oo aan tijaabin taageerada weli bulshada iyo siyaasiyiinta ka haysto. ila xogogaal ayaa xaqiijiyay in Qoorqoor uusan si toos ah u diidin codsiga loo gudbiyay, balse uu sheegay waftigii booqday inuu waqti u baahan yahay si uu uga soo fikiro arrintaasi, isla markaana uu la tashan doono saaxiibadiisa siyaasadeed iyo xubnaha ugu dhowdhow ee la shaqeeya. hadalkaasi ayaa durba dhaliyay hadal hayn xoogan, maadaama markii ugu horreysay ay soo baxayaan calaamado muujinaya suurtagalnimada inuu bedelo mowqifkiisii hore. go'aankii uu Qoorqoor kaga hadhay doorashada wuxuu xilligaasi si weyn u soo dhaweysay Villa Soomaaliya. wararka siyaasadeed ayaa sheegay in dowladda federaalku dadaal badan ku bixisay sidii loogu qancin lahaa inuusan u tartamin, iyadoo la rumaysan yahay in qorshaha madaxtooyadu ahaa in musharaxeeda Galmudug Liibaan Shuluq ay si weyn u dhisto. musharaxa sida weyn loo hadalhayo Villa Soomaaliya taageerayso Liibaan Shuluq oo ah ganacsade caan ka deegaanada Galmudug, isla markaana ka tirsan xisbiga cadaaladda iyo wadajirka, kaas oo uu hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh. Liibaan ayaa muddooyinkii dambe waday kulamo siyaasadeed iyo abaabul uu ku doonayo inuu ku helo taageerada xubnaha baarlamaanka Galmudug
iyo madaxda dhaqanka. Soo laabashada qoorqoor ee tartanka haddii ay dhacdo waxay si weyn u bedeli kartaa xisaabtii siyaasadeed ee Villa Soomaaliya. Sababta ugu weyn ayaana ah in qoorqoor uu yahay siyaasi muddo ka badan 6 sano hogaaminaya Galmudug, lahana xidhiidh siyaasadeed oo ballaaran isla markaana si fiican u yaqaan qaabka loo maareeyo doorashooyinka. Maamulka falanqeeyaasha siyaasadda ayaana aaminsan in haddii qoorqoor isu sharaxo uu noqon karo musharaxa ugu miisaanka culus doorashada, waxaanay ku doodayaan in muddadii uu xilka hayay uu dhistay xidhiidho siyaasadeed oo xooggan isla markaana uu taageero ka haysto qayb ka mid ah baarlamaanka iyo bulshada Galmudug. Dhanka kale waxaa jira dad qaba in soo laabashadiisu ay keeni karto tartan aad u adag maadaama musharaxiinta cusub ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan maqnaanshihiisa. haddii uu tartanka galo waxaa suuragal noqon karta in codadka baarlamaanka si weyn ay isu bedelaan isla markaana musharaxiin badan ay dib u eegaan ololahooda. Wararka kale ayaa sheegaya in gudaha Villa Soomaaliya si dhow loola socdo dhaqdhaqaaqyada cusub ee ku saabsan qoorqoor. ila siyaasadeed ayaa sheegaya in mas'uuliyiin sare ay wadaan kulamo lagu qiimeeyo saameynta uu yeelan karo haddii uu bedelo go'aankiisii hore. waxaana jira xogo sheegaya in qoorqoor haddii uu ka laabto go'aankiisii hore ay Villa Soomaaliya qorsheynayso inay ku xanibto magaalada Muqdisho isla markaana lagu hor istaagay inuu ka dhoofo garoonka Aadan Cadde si uu u gaadho Dhuul Samareeb. arrinta xiisaha leh ayaa ah in beelaha hadda ku cadaadinaya qoorqoor inay ka doonayaan in marka hore la tijaabiyo awoodiisa siyaasadeed halkii hore loogu sii go'aamin lahaa inuu tartanka ka hadho. guud ahaanna warkii